السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa hoyga dhiiranay English Learning Funds qaybtiisa YouTube-ka Englishka ku baro si fudud adoo nagala soconaya page-kan ku leenahay YouTube-ka kaas oo aan soo gelino barnaamijyo kala duwan sida wada sheekaysi kelmado iyo topic aan daily aan u soo gelino bartaan ku leenahay YouTube-ka waa aniga Cabdisaaq Muuse Axmed Cabdisaaq Dhiirane. waxaan u mahad celinayaa Ilaahay marka kale waxaa mahad leh dadka wax ka barta YouTube-keena Dhiirane English Learning Funds kuwaas oo nagaad siiyey 500 subscribe muddo kooban. hadda saad ula socotid casharada Englishka aan soo dhigno fadlan subscribe saaro. waad mahadsantihiin. Allaha idin sharfo adduun iyo aakhiroba. inshallah maanta waxaynu qaadan doonaa topic ku saabsan ciidamada. topic about troops. mowduuc ku saabsan ciidamada. sidoo kale waxaynu ognahay in ciidanku yahay laf dhabarta wadan kasta uu ku faano. ciidan la'aan waa wadan la'aan amba nabadgelyo la'aan. inshallah waynu bilaaban doonaa mowduuceena ku saabsan ciidanka. troops are capacity. troops ciidamadu are capacity waa awoodda that every nation uu qaran kasta bost ugu faano to another nation qaran kale. troops ciidamadu are capacity waa awoodda that every nation uu qaran kasta bost ugu faano to another nation qaran kale. sidoo kale troops ciidanku are armed forces waa ciidamo xoogan intended kuwaasoo u tababaran to preserve inay ilaaliyaan country security nabadda amba magaranaysa amniga waddanka. aan ku sii celiyo troops ciidamadu are capacity waa awoodda that every nation uu qaran kasta bost ugu faano to another nation qaran kale. troops ciidamadu are armed forces waa ciidamo xoogan intended u diyaarsan to preserve se u ilaaliyaan country security amniga waddanka amba amniga waddan se u ilaaliyaan. without troops ciidan la'aan means no peace waa amni daro. means no peace waa nabad daro amba without troops ciidan la'aan means no peace ma laha peace amni amba an stability iyo xasilooni. sidoo kale waxaynu ognahay in ciidan la'aani ay tahay nabad la'aan an stability iyo xasiloon la'aan. without troops ciidan la'aan no peace waa nabad la'aan an stability iyo xasiloon la'aan. every government dowlad kasta has national troops waxay leedahay ciidan u gaara. has national troops waxay leedahay ciidan qaran. every government dowlad kasta has national troops waxay leedahay ciidan qaran. those kuwaasoo defends ka difaaca the country waddanka for enemy cadowga. every government dowlad kasta has national troops waxay leedahay ciidan qaran. those kuwaasoo defends ka difaaca the country waddanka ka difaaca for the enemy cadowga ka difaaca. also sidoo kale troops ciidanku are the first pillar waa tiirka koobaad. also sidoo kale troops ciidanku are the first pillar marka pillar waxa weeyaan tiir weeyaan. troops ciidanku are the first pillar waa tiirka koobaad which kaasoo built uu ku dhisan yahay every country waddan kasta. waxaynu ognahay in ciidanku yahay tiirka koobaad uu waddan kasta uu ku dhisan yahay. ciidan la'aan waa waddan la'aan. troops ciidamadu are those waa kuwa fulfilling buuxiya. troops ciidamadu are those waa kuwa fulfill
buuxiya the national defense policy siyaasadda amba amniga difaaca ee dalka. Troops ciidamadu are those waa kuwa fulfill buuxiya the national defense difaacidda qaranka policy of their country ee waddankooga. Troops ciidamadu sacrificed waxay u huraan troops ciidamadu sacrificed waxay u huraan their selfish nafahooga to their people dadkooga. Troops ciidamadu sacrificed waxay u huraan their selfish nafahooga to their people dadkooga. How to live say ugu noolaan lahaayeen long life nolol dheer. Yani wuxuu leeyahay ciidamadu waxay u huraan naftooda dadkoogay u huraan say magaransa ugu noolaadaan nolol dheer. Troops ciidamadu sacrificed waxay u huraan their selfish nafahooga to their people dadkooga. How to live sida ugu noolaan lahaayeen long life nolol dheer oo daba dheeraata. Troops ciidamadu are those who ready waa kuwa u diyaarka ah. Troops ciidamadu are those who ready waa kuwa u diyaarka ah to protect inay ilaaliyaan to their people dadkooga to protect say uga ilaaliyaan to their people dadkooga. Troops ciidamadu are those waa kuwa who ready kuwaasoo diyaar u ah to protect inay ilaaliyaan to their people dadkooga. The day coming maalintii timaada a night out iyo habeenkii baxaba. Marka wuxuu leeyahay ciidamadu waxay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan dadkooga sidoo kale waxay ilaalinayaan maalintii baxda iyo habeenkii maalintii soo gashay habeenkii baxa. Troops ciidamadu are those who ready waa kuwa diyaarka u ah to protect inay ilaaliyaan their people dadkooga. The day coming maalintii timaada a night out iyo habeenkii baxa. Troops ciidamadu consist waxay ka kooban yihiin of various parts qaybo kala duwan. Consist waa koobnaa various waa qaybo kala duwan. Troops ciidamadu consist waxay ka kooban yihiin of various parts qaybo kala duwan such as sida infantry troops ciidamada dhulka sea force ciidamada badda air force ciidamada cirka aan ku soo celiyo. Troops ciidamadu consist waxay ka kooban yihiin of various parts qaybo kala duwan such as sida infantry troops ciidamada dhulka waxa weeyaan kuwan magaranaysa ee by the foot ee lugahooda ku socda infantry troops baa la yiraahdaa ciidamada dhulka. Sea force ciidamada badda air force ciidamada cirka include ay ka mid yihiin paratroops ciidamada parachute ku duula. Marka ciidamada waxaa ka mid ah ciidamada parachute ku duula of course iyo dabcanba booliskana uu ka mid yahay. Soo sidaa daraadeed this all troops dhammaan ciidamadani mentioned above ee xagga sare lagu sheegay do waxay qabtaan day to day operation howlgallada maalinlaha ah. Soo sidaa daraadeed this all troops dhammaan ciidamadana oo dhani mentioned ee lagu xusay above ee xagga sare lagu xusay do waxay qabtaan the day to day operation howlgallada maalinlaha ah. Troops ciidamadu are managed waxa maamula by Minister of Defense. Troops ciidamada are managed waxa maamula by Minister of Defense wasiirka gaashaandhiga. Minister of Defense wasiirka gaashaandhiga aan ku soo celino halkaas. Soo sidaa daraadeed this all troops dhammaan ciidamadan oo dhan mentioning aan ku sheegnay above xagga sare do waxay qabtaan the day
the day-to-day operation howlgallada maalinlaha. Troops ciidamadu are managed waxa maamula by the Minister of Defense wasiirka gaashaandhiga. At least but not last gun iyo gunaanadkii at least but not last gun iyo gunaanadkii as much we support in badan aynu taageerno as much we support in badan aynu taageerno and respect aynu qadarino our troops ciidamadeena is as much waa in badan our country wadankeenu is as much waa in badan our country wadankeenu reach u gaadho tangible development horumar la taaban karo tangible development horumar la taaban karo one according marka laga eegayo else countries wadamada kale. Aynu ku soo celino mar koobaad. Troops ciidamadu are capacity wa awooda that every nation uu qaran kasta bost ugu faano to another nation qaran kale. Sidoo kale troops ciidamadu are forced intended waa ciidamo howlgalnimo u diyaarsan to preserve say u ilaalin lahaayeen country security wadan amnigiisa. Without troops ciidan la'aan means no peace waa amni daro means no peace waa nabad la'aan and stability xasiloon la'aan. Every government dawlad kasta has national troops waxay leedahay ciidamo those kuwaasoo defense difaaca the countries those kuwaasoo defense ka difaaca the country wadanka for enemy cadowga ka difaaca. Also sidoo kale troops ciidamadu are the first pillar waa tiirka koobaad which kaasoo built uu ku dhisan yahay troops. Sidoo kale troops ciidamadu are those waa kuwa troops ciidamadu are the first pillar waa tiirka koobaad which kaasoo built uu ku dhisan yahay every country wadankaas. Troops ciidamadu are those waa kuwa fulfill buuxiya amba waajibaadkooda ku buuxiya the national defense policy si u ilaalin lahaayeen magaranaysa siyaasadda difaaca of their country wadankooda. Troops ciidamadu sacrifice waxay u huraan their selves nafahooga to their people dadkooga. How to live si ugu noolaan lahaayeen long life nolol dheer. Troops ciidamadu are those waa kuwa who ready kuwaasoo diyaar u ah to protect inay ilaaliyaan their people dadkooga. The day coming maalintii timaada a night out iyo habeenkii baxaba. Sidoo kale troops ciidamadu consist waxay ka kooban yihiin of various parts qaybo kala duwan such as sida infantry troops ciidamada dhulka. Troops ciidamadu consist waxay ka kooban yihiin various parts qaybo kala duwan such as sida infantry troops ciidamada dhulka, sea force ciidamada badda, ciidamada badda, air force ciidamada cirka, including uu ku jiro oo uu ka mid yahay paratroops ciidamada parachute ku duula, and of course iyo dabcanba booliskaba. So sidaa daraadeed this all troops dhammaan ciidamadaas mentioning aan ku xusnay above xagga sare do waxay qabtaan the day-to-day operation howlgalnimada magaranaysa maalinlaha ah ee maalinba maalin la qabanayo. Troops ciidamadu are managed waxa maamula by Minister of Defense wasiirka gaashaandhiga. Troops ciidamada are managed waxa maamula by Minister of Defense wasiirka gaashaandhiga. At least but not last gun iyo gunaanadkii as much we support in badan aynu taageerno and respect aynu ixtiraamno our troops ciidamadeena is as much waa in badanoo our country wadankeenu can reach u gaadhi karo tangible development horumar la taaban karo one according marka laga eegayo
else countries wadamada kale hadaba maanta halkaa aynu ku joogto insha Allah halkaas aynu ku joojin doonaa waanigo Absaam Muuse Axmeda insha Allah waxaan soo diyaarin doonaa amba waxay noo balama next video-ga